caruurtaada haddii aa u dhiibtid taleefoonada smartphone-ka si aa isaga aamusisid ama isaga mashquulisid waxay kuu keeni karaan dhibaatooyinkan soo socdo. midda koowaad waxay tahay oo caruurta haddii taleefoonada shaashadaha u dhiibtid ay isticmaalaan in muddo ah in dabeecadooda sidoo kale xanaaq walwal niyad-jab inuu ku imaado. arrinta labaad oo u keeni karto isticmaalka mobilka shaashadaha caruurtaada waxay tahay in xilliga seexanayaan oo kale haddii aa u dhiibtid ay isticmaalaan in nidaamka hurdadooda uu khalkhal ku imaado kadibna aad ku aragtid xilli maalintii oo kale in diiradooda aad u hooseyso waxbarashadoodna hoos u dhac ay ku imaato. arrin saddexaad oo lagu arki karo caruurta taleefoonada shaashadaha loo dhiibo oo isticmaalo ama YouTube ama wax walba ha ka isticmaalaan xitaa saacado yar ha noqdaan waxaa lagu arkaa in waxyeelo indhahooda ay soo gaarto sida indhahooda oo qaleel noqdo, 2 nooc ka mid ah weershaha in lagu arko iyo 3 daciifida aragga ah in lagu arko. arrinta afraad ugu dambeysana waxay tahay cilmi baaris qaar ayaa waxaa lagu arkay xiriir ka dhaxeeyo isticmaalka shaashadaha ee caruurta iyo nooc ka mid ah burooyinka ee maskaxda ku dhacdo inkastoo qasab tahay in baaritaanadaas la sii xoojiyo.